siday magaranaysaa u soo dhaweeyeen dadka walaalahooda ka soo barakacay gobolada bariga abaartu ku dhufatay waa beertii ugu horeysay ee dadka ay soo hayaameen ay degeen way marxaatimaanu ka nahay hadaanu maamulkii degmada wajaalanahay intaas waxa weeyii maanta halka taala waa baaqigii weeyii maanta waa baaqigii weeyii ay maanta ku wareejinayaan barasaabka gobolka iyo gudida abaaraha weeyii intii ka soo hadhay weeyii dadka soo barakacay waxa kale oo farxada ciidamada waxaynu ku ogeeyeen inay amniga iyo nabadgelyada ay sugan run ahaantii waxaan ku ammaanayaa inay maanta wax soo saarkii dalkana ay ka qayb qaateen oo ay magaranaysaa u gurmanayaan dadkii maanta wax soo saarkii iyo midhihii ay soo saareen inay maanta magaranaysaa ay kaga qayb qaadanayaan gurmadka abaaraha waxa kaloon ku ammaanayaa iyaga oo ayna dheerayn maanta oon intaasiba in laga qaada ayna ahayn waxa weeye oo ay warshad kale ku furanto fardaha aynu arkana 200 oo fardood in ku dhowba halka joogta oo midkiiba 4 ku soconayo markiiba waxa weeye laakiin waxa dhig joojin loogu sameeynaya oo taliyaha bilayska Soomaaliland Cabdilaahi Fadal Iimaan uu amar ku bixiyay in la gaarsiiyo dadka magaranaysa soo kici kar waayay iman kar waayay gobolada galbeedka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waanu mahad celinaa saddexda ciidan ee degan banka Wajaale siday uga qayb qaateen taakulaynta abaaraha bariga waxaynu ognahay abaartan waa abaartii madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo uu baaqa dheer ka jeediyay way ee uu mariyay gobolada bariga isagoo u kuurgaraya dadka iyo xoolaha intaba oo taliyaha bilayskuna marxaatiga ah uu raacay waxa weeye wajigii labaad bay imika kow ka tahay in dadka la gaarsiiyo run ahaantii waanu mahad celinayaa taliyaha bilayska iyo saraakiishiisa iyo barasaabka gobolka oo isaguna ayna la'aantii suurta gasheen in magaranaysaasi dadkaasi bariga ee gobolkaasi sidii looga soo ururin lahaa magaranaysaa aad baan ugu ammaananaa barasaabka gobolka Xamse Maxamed Cabdi sidoo isaga xil saaray in magaranaysaa dadka bariga la gaarsiiyo taakulaynta iyo dhiig joojinta